gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo howlo shaqo ku jooga magaalada Burco ayaa kormeeray gurigii laga dhawaaqay goonistaagga Somaliland 1991 kaasi oo hadda mid burbursan oo aan la dayactirin muddadaasi. Gudoomiye Cirro ayaa si kulul uga jawaabay hadal ka soo yeedhay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena xukuumadda xisbiga kulmiye ugu baaqay in sanadka soo socda lagu xuso xuska 18 May gurigii laga dhawaaqay goonistaagga Somaliland. Isagoo gudoomiye Cirro qodobada iyo qodobo kale ka hadlaya waxa uu yiri waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegayaa inaan taaganahay aqalkii laga dhawaaqay dib soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland 1991 waa boqorada ugu mudan in laga xuso ama lagu xuso 18 May. waxaan shacbiga reer Somaliland kaga qayb galay munaasabadda ciidda qaranka gobolka Togdheer. shacbiga gobolka Togdheer xukuumadii kulmiye ee dalka soo xukumayay ilaa 2010 18 May way jecel yihiin, laakiin waxa ay andara ah in goobtii laga dhawaaqay ay sidaa u eg tahay maanta iyagoo xukunka hayay muddo ka badan 12 sanadood. waxa kale oo aan la yaabay in madaxweynuhu yiri Cabdiraxmaan Cirro ka maqnaa 18 May anigoo Burco joogay oo aan dibadda ku maqnayn. waxaasi madaxtooyadu Burco ma waxay u taqaanaa meel qurbaha ka uga mid tahay. walaalayaal waxaan mar labaad idinku bogaadinayaa shacbiga reer Somaliland maalinta qaranka 18 May. waxaan kale soo jeedin lahaa xukuumadda inay maalinta qaranka ee sanadka soo socota 18 May halkan lagu qabto, sanadka ka harsanna halkan la dhiso. waa Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SABC magaalada Burco.